safar 10 kilomitir oo aan kaga soo ambabaxnay magaalada Dhagaxbuur ee caasimadda gobolka Jarar waxaanu hadeernimi tuulada Garowa halkan dabadeeda waxa qabri marka dhaho maskaxdaada waxa ku soo dhacaya inuu qofku aasan yahay eegana waxa is weydiinaysaa qofka ku aasan ma mid kamid ah awooyaashii ummadda Soomaaliyeed ma mid kamid ah haliyayaashii Soomaaliyeed balse intaasba ma aha ee waxa ku aasan hashi madida ahayd ee Garowa markaan ku dhaho halba ku aasan waxa laga yaabaa inaad is weydiinaysid ee kugu noqoto la yaab ama qiso cajiib ah waxa inooga faahfaahin doona oo inooga warbixin doona qaar kamid ah family-gii ama odayaashii dadkii ku aasay hashata halka kan waa tahay waxaanu joognaa xabaashi baanu joognaa maxay ahayd waxa taariikhdeeda hasha iyo qisadu sida ay u dhacday inala wadaagi doona Xamdi Cabdullaahi Cabdi oo ku magac dheer Xamdi Garowa Xamdi ku soo dhaw walaalkay aad buu mahadsan yahay hadii aan ku soo dhawaado magacayga waa sida uu soo sheegay walaalkay waxa la yiraahdaa Xamdi Cabdullaahi Cabdi waxaana ku magac dheer Xamdi Garowo hadaan yar ku darsado waxa la igu raacay qabalaha magaciisa waanu hortagay صح 69 markii heed la soo qaxay baan gaari jaban meesha ugu imid anoo xoolo soo fuliyay reerkuna wuxuu dhinac ka ahaa marka hadii la ka dhigo kirishbeegi baan ku wada waradan shaah ku kariimaad iga gadanay warniyo ma ii kariibo bal aniga bashaa maxay bari reemi baan ahaabe waan iskaga dulshitay wakaad ogtihiin oo marka caruurteenu soo karto waxa la oran jiray xabashada ka soo cararay gaariga guuxa xamaara la moodi jiray marka baaburtii soo qaxday oo bilaa taayira ayaa meesha taagnayd runtii saasaan horta magaalada aan ku dhalay ku sidaahi maayo oo umad badan baa deeimka digto waa iyada magaalada noqotay hadaan soo noqdo hasha taariikhdeeda hashu hal cajabay ahayd xilligii horta la aasay ilaa lixdeeyadii meelahaas ahayd marka hasha taariikhdeeda hadaan ku socdo waxay ahayd hashu anaga way naga horeysay laakiin taariikhaha waxaan ka hayno inaan soo dhigno oo diyaarsanahay hashu hal mucjisa hal caana badan bay ahayd waxa kamid ah taariikhdeeda Soomaalidu marmar bay isir leeysay oo qabiil baa la soo waxayaa intay foolatay oo xaqan iyo isaaqa ay u foolatay ayaa la yiri soo celin maayo halka ay ku dhashay mooyee raga fartanina loo diyaariyay col waa laha afartakiin hashi markay dhashay bartay ku dhashay in baa lagu waardeeyay oo lagu ilaalinayo oo halka kana ha صح marka sidii way u soo fool halowday halka kana timi lama celinayo ninka shalahay صح marka hashi aanay waxa ku deeqday afartakiin iyo ilmaheedii markay muddo joogtay ee ilmihii isku dhaqaaqay baa la soo kiciyay صح taasoo ahayd ta kale waxa jirtay dirkeedii gabadh laga bixiyay oo maartay Soomaalida dadkeena ahayd yaradahan baa loogu geeyay yaradka waa taqaanaan markuu ninku kalahay qaraabo yahay way gabadh jiray aqal Soomaali wax la ilaalin gali jiray aqalka marka aroortii buu ninku hashi gariirkeedii maqlay dirkeedu uu gariir jiray markay kacday waxa dhihi jirtay bay dhihi jirtay geel kala uu reema marka kicitaankii uu food saayiri reerkana ta kala buu lahaa waxa loo kiciyay isaga caana loogu dariyay ee ma ahayn cid kale maartay loo baakay taariikhda ninkii wuxuu yiri hashan ku hadii inuu xalay keenay dhaxantii lagu kiciyay Garowo gabadhii sidaas saaman ku furay arinta mucjisa ilaahay ka darantii hore gabadhii uu ka bixiyay laga bixiyay ee caawa reerka uu soo hidi maadaama aan ka tagin uu kiciyay oo dhaxanba ku kiciyay dhinaca kale haduu ka fiirin lahaa isaga loogu cadeynay shaah la kalin lahaa Soomaalian garan gabadhii saas ku furay hadii ilaahay ka dhigo wixii kale ma garanaysaa taariikhdeeda hadaan ku soo socdo hashu waxay ahayd mucjiso hadii la ka dhigo cidii aastay iyo markaan taariikhda soo raacno waxa la oran jiray odayga Shilinkaar baa la dhihi jiray Shilinkaar baa la dhihi jiray waa qabaalka la dhaho reedogoodka geel wuxuu socday baa la yiri karan marka hadii la ka dhigo xilliga wuxuu yiri koladii garaba dhimantay in la aaso oo la kanfo mooyee lama cunayo oo lama qalayo hashi horta maxay ahayd waxaan markii hore ka soo sheegay bixitaankeedii bahalkay halka kan markay timi hasha maxaa helay sidee noqotay inta hasha waxay ahayd geel karandoonad buu ahaa karandoonadka waxa jiray geel qani iyo waxa la yiraahdo jiray markii roobku doo karantii tahay hasha markii waqti baa ku soo xaadiray hal aad loo jecel yahay maadaama ay ahayd oo taariikhda la soo koobi karin inaha waan iska soo gaabsanaynaa marka wuxuu ninkii hasha lahaa ilaahay ka ahaa lama aasay hasha sidii laba qalayo sidii xoolaha kale laakiin si dadkii baa loo aasay xanuunku ku yimid wuu ku xila furay walaalkii marka ayaa isaguna yiri hadaadan kafin oodan xabaal qulin ana intaas iga tahay
labadoodii markaa ku xila furay markaa dee dhaartana waa la qiimeyn jiray berigaa hore war cajab baa dhacday ragga u xila furay maxaan yeelaa baa waxa weeye marka waxa la soo qaaday laba kabad waa taqaanaa waan manay waa waxa la sameeyay hidii dhaqanka ee xariirta la yiraahdo marka kalena laga sameeyo suufka dumarku si taagaan soo ma garanaysa waxa weeye marka labada kabad baa la isku talay hashi waa lagu kanfay sidaas hashi macnaha xabaasheedu ay dhaqan ku dhaqan ma la dhaqay hashi waa ku meeyay hashi waxa weeyaan kulli waqti biyaha iskiliit horumarintan caalamkani waxaan ma jirin waa la kafay gaadina muusan jirin taariikh ajaayib leh noqotay marka cid kasta oo hashaas arinteeda u timaada waxaan anagu ku buurinaynaa horta bal inay sida taalada sayidka oo kale inay hashi iyo nirigtii ay u sameeyaan maadaama oo ilaa qurba joog ilaa dad munaybas ka yimid meel dad ka yimid mar walba inay isku dayeen xukuumadii hore iyadoo hadaleysa ay maartay ya magaraysa uu waqti ka soo gaaray qurba joogta iyo dawladda waxaan faraynaa ina taaleedeelas maadaama ay dhaqan gashay xilli waxa tii caalamka adduunka kale ingiriisku bil sacban oo aasayna sacada soo u socdaa sida garow kale marka waxa la iska joog qolo Soomaaliyeed kaaga horeysay ma galaysid oo wax aastay ma galaysid taariikhdi taas ingiriisku gacmuhu la laabtay baa ahayd sida daraadeed geelu dehdii dhaqan bayno sida daraadeed aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa qoladiina media noo keentay laakiin fariin waxaad naga gaarsiinaysaa cid kasta oo Soomaali meel joogtaba hidii dhaqanka in la muujiyo si taalada sayidka oo kale oo hal iyo nirigtii adii carwo in laga dhigaan codsanayna taariikhda waxa ku jirta hadda waad ogtihiin hidii dhaqan baa leenahay caanaha geela aad baa loo yusgareeyaa geedkan waxa kamid yahay geedaha hash daaqi jirtay ee gaarka ah ee geeru maartay xilliga abaarto kale ama dhulku daaq ka dhamaado uu soo haraa magaciisana qalanqad baa leeyahay sidoo kale isagii mayaagiyo haddaan yar ku soo laabto waxa weeye hasha mucjisay ahayd meesha horta garawleed caanigeel lagama waayo mar walba oo marto ama kuwa dhanaan oo fustooyin lagu dhibaat ka helaysaa ama kuwa dhawa free show la soo lisay hadda inta ay BBR-ku soo gaaray ee laamidu timid ee baabuurta yar ee barbogosta la soo kaxaystay iyo rabbi ku sameey ogolaa ay suusiyadan gaariga qabdaha ka imoo nala soo hadlay si diyaar u dhih mas'uuliyiinta iyo madaxdu marka ay imanayaan gobolka Jarad waxa la soo diyaariyaa hool dhan oo caanigeela yaa la soo diyaariyaa xaqiiqo weeyaan waxana laga qaadaa tuuladan garow sida daraadeed in horta hashal cajabeed haysaa soo garanaysaa hidii dhaqankaagana lagama tagay hees baa waxay ahaan jirtay haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo tidid haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraanay hagarlii wax ugu qabo hooy hantiyay macaan waa midaan hooy laga oranay heleeyoy hidii dhaqan ahaan baa loo soo qaadanaya dadku qaarkiin gobolka Jarar wuxuu aan ku yahay oo u gaar ah mustawqiyaha waxa ku sawirnaa markii hore hal iyo nirig oo ah maxay haytay looga jeedo hashi garoowe iyo nirigteedii waa gobolka Jarar bay u gaartay haddana waa la bedelay oo waxa lagu bedelay laba buurood oo isaga mid ka yihiin magaalada Hargeysa oo la dhaho Naasa Hablood buu leeyahay gobolka Jarar taasoo maxay ahayd labada buurood ee ku yaala magaalada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar lagu xardhay oo ku yaaliin xagga dambe background-ka dambe ee mustawqiyaha gaar ahaan ninka beerta ay ku dhax taalale si gaar u dhaqaalaya Xasan Shacali baa leeyahay garabkii uu taagan yahay irfida dhinac uu ka mariyaa waxa soo dhiray isaga u beeray uu ku ilaalinaya beertan baan leeyahay beertan ayaan iska leeyahay oo aabay ka soo gaaray sax oo ka dhaxashay marka meeshana meesha baan ugu nimid oo ahaan jirtay markii leeyahay ilaahay garawaa lagu aasay waan dhaqaalayaa sidoo kale aan dhaqaalayaa sidii xawaalihii bilaadanka oo kale ayaan u xurmeynaa oo dhaqaalaynaa marka waan irfida waan ka duwaa iyo maanta meelaha qodaalka ah meelo badan iyo dad fara badan uu yimaadaa kan nimid magaalada Dhagaxbuur waxaan ma soo safarnay tuulada garow maadaama meesha ku aasan tahay hal taariikhi ah aan hadda ka raxbaana koogeyn marka waxaan soo safaray maartii inaan ogaano taariikhdeedii iyo maartii qaabkeedu sidoo yahay qabriga aan soo aragno marka aad bad mahadsantiin magacaygu waa Cabdiraxmaan Nuur Ismaaciil waxaan kamid ahay dhalinyarta ku nool maamulka magaalada Dhagaxbuur waxaanu socdaal yaro gaaban aan ku nimid tuulada garow si aan u aragno ama aan warbixin buuxda aan uga helno hashi ku aasan garow waxaanu ogaanay macluumaadyo badan oo ku saabsan marka aad ayaan ugu faraxsanahay safarkan soo galnay iyo booqashada aan ku nimid xagan waxaan maanta joognaa magaalada garow waxaan ka soo baxnay magaalada Dhagaxbuur garowan hadda waan joognaa si aan u helo hashi taariikhi ahayd si aan u helo
macnaha taariikhdeedii aanu waagii hore ka da'yarayn si dhammaystiran si aan u helo haddana waan joognaa wayna noo dhammaystiran tahay waanu helnay waxaanu nimi magaaladii taariikhiga ahayd ee garowa dhinacayga garabkayga bidix waxaa taagan mid ka mid ah odayaasha guurtida magaalada tuulada garowa oo ahaa aas-aasihii ugu horreeyey ee tuulada garowa waxaan rabnaa inuu nala wadaago taariikhda ay leedahay tuulada garowa adar ku soo dhowow magacaaga ku bilaaba axmed cabdi cumar baa la yidhaah waa sax waxaad bal maxay ahayd nala wadaagtaa taariikhda magaalada tuulada garowa magaalada 70 iyo 1970 iyo 4 baa la degay sax yaani soo degnay sax dhagax buur iyo bulaale cidi uma dhaxaynin oo magaaladan ahayn haye uma dhaxaynin maxaa markii ugu horeysay maxaad ku bilowday waxaan ku bilaabay maqaayad geed galoole hoosti haye aad ku yimi jirtay yaan ku yimi shaaha ka geeyay dadka iyo dadka safarka iyo geeljiraha wadadii geelaatana haye yaan ku gadi jiray haye halkaas ka bilaabmay haye goorma dadkii soo degdegeen oo soo baxalkeysmeen dadkii kolku ilaa 2 sano kadib uu dadku soo biiray sax halkaas ku soo biiray waan gartay shabahada markaa soo galay wadanka waan gartay magaca garowa maxaa ugu bixiseen oo meesha garowo waxa loogu bixiyay hal garowo la yiraahdo baa lagu aasay sax oo magaaladan haye halkaas ay xabaasheedu ku aasantay sax hashaasa loogu magacaabay sida nalagu yiraahdo anagu ma aanan goobjoog ka ahayn way naga horeysay anaga sax hashaasa loogu magacaabay hashaasa loogu magacdaray waa xabaasheedu wataas la halkaas ay taayay aad iyo aad lagu maraa aad iyo aad garowe ku magac dheertaa waa hashi garowe ahay waa tahay intaas waxa inoogu eeg taariikhdii koobnayd iyo warbixintii idin daadihinay isugu sikii dubriday anigoo ficil burkuud dhiidhiya waxaana nagala daawanaysaan waa warbaahinta Daljir tan iyo barnaamij la mid ah ku kulmi doona